especially kids. Today I'm gonna be making fish scones. What are you making today? Scones. Fish Scones. Yeah. Do you know how to make these scones? Yes. sida loo sameeyo miyaa taqaanaa sconeka Yeah. ma carruurtaad ugu yeedhaysaa markaa inay kaa bartaan carruurta inay kaa bartaan baad rabtaa okay can you ma samayn kartaa markaa bal hadda bilow First, you have to. First, you have to cut the scones oh cut the scones in half. the half okay carefully your finger you cut it no okay carefully Hiya. Okay, that's just too fat. Okay, then you get. You cut very hard, Abu. Why you do like that? It's wobbly. What means wobbly? Like it means like it's not steady, like still. Okay, here, let me tell one thing. And kan waad khaladay. Yes. You make mistake. So qaado waxaan bahalkan isu wabgareyn bahalkan wax ku qabta soo qaado. Okay. You all right? Aye saar hadaba. Okay. Hadda muxuu sameynaysaa? It's not wobbling now. Very good. So this one you make mistake. Khalad baad ku samaysay kan ka qaad markaa. Okay? Hagan say isaga xad. Take the another one. Cut nicely. And daawadayaal dhageystayaal. Okay. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد. erayga aan meesha ku soo qoray raalli naga ahaado waxaa nagu dhacay cillad xagga farsamada ayaa dhacday waxaan meesha kan anaa sameeyey waa scone waa one of the top waa English style dadka Ingiriiska ayaa isticmaala waa English style saas markuu sidaa yaa waa la iibin karaa xabad koobashiina iyo sidaa hadda uu yahay waxaa la gadayaa $3 $2 $3 iyo badh minimum ilaa 4 pound ayaa la gadayaa xabad koobashiina la socoto waa markuu sidaa uu yahay marka waxaan doonayaa ninkan dhalinyarada ah inuu iga daba koobiyeeyo exactly sidaa aan u sameeyey inuu koobiga raaco okay carefully your finger you have to cut slowly yeah okay up don't go down yeah middle cut the middle yeah okay middle kimaad ka jartay Yeah. show me that's good xagan dhig okay And show me how to do yeah ta kale aan doonaya inaad ka faa'iideysataan aan doonaya inaan idin sheego fresh strawberry-gaas waa kii shalay ii baxay waa kan idin tusayay beertayda ka soo baxay asaga oo kale aan tig ka dhigana eega waxaan waa strawberry kan waa strawberry kana waa strawberry labaduba anaa sameeyey labadaba anaa beeray kana gardenkaygu ka baxay waa fresh oo wakaas ku yaala rootiga biscuitka ku dhex jira xaggana asagoo jaam ahaan loo isticmaalaya fiiriya marka strawberry-gan halkan aan doonaya wax yar aan sharaxo strawberry waa red strawberry waa fresh strawberry kan shalay baan idin tusay baa gardenkaygu ka baxay markii aan beerayay seedskiisa iyo bilowgii ugu horreeyey ilaa hadda uu bislaaday waad ila socoteen intiina wax fahmaysa markaa jaam baan haddana ka dhigay markaa jaamkii wuu marinaya okay do it carefully don't do one side nice everywhere Garcia spread every corner okay take more charm waa strawberry charm haddii strawberry charmkaas hadda aad isleedihiin waa kii la soo iibinaya no lama soo iibinin waa kaa anigaa gacanteyda ku sameeyey anaa ka dhigay charm kaasina anaa beeray anaa bixiyey anigaa markaas sidaa usoo farsameeyey wakaa asagoo freshan uu soo baxayn okay that's it waa damay soo maaha what's the next you do maxaa ku xiga okay show me how to do it hold this tight, and then you have to squeeze. okay show me okay push more okay okay do it keep going samee very good well done si fiican baad u samaysay okay put the middle stars ku dhufo those stars okay
Let me see my hand. Saasaan doonayaa ab. Look my hand. My hand ma aragtaa? Okay. Okay, sidaas weeye soo maa? That's good. What's the next? Maxaa ku xiga? Strawberry. Okay. Do with the strawberry. Saasaan leedahay strawberry. Strawberry waa inuu show garaysmaa. Ma fahmaysaa? waa inuu saa noqdaa. Okay, do it. Very good. Put them nicely, yeah? waxaad jeceshay sama jeclid wax qurux badan oo good image inaad iibsato marka waa inaad good image u samaysaa. Thank you very much. Okay. Wakaas marka strawberry. What's the next? Maxaa ku xiga? I think that's good. No. Add a little bit more cream. Add in the top and squeeze in the middle, yeah? Okay. Mm-hmm. Give me. Gacantaydii baaba. Okay. Gacanta iska soo may. Your hand is too dirty. Wash your hand. Okay. Casariyahan waxaan ugu talagalay inaad iyaga daba koobiyeysaan oo carruurtu ay sameeyaan oo xaafadda loo sameeyo oo makhaayadaha loo sameeyo oo hoteelada loo sameeyo wax kale la idinkama gado waxan baa la idinka gadaa. Okay. Good. xagga kore saar. Very beautiful. So waxaan doonayaa halkan inaad saarto. Can you do it? Carefully. Don't push that. Yeah? What's the next? Maxaa ku haray? Very good. Put nicely, yeah? Shayda. Okay. Look at that. MashaAllah. Well done. Scones. Second one. aniga hadda xabad sameynaya xagga soo istaag saa igu qoon lahayd ana xabad sameynaya okay saasaad qabanaysaa stonki wakaas waa biscuit sida kale hadda Soomaali intan hadda meeshaan kusoo qoray Soomaali kuma garanayo laakiin waan English man ku garanaya waa biscuit eeg gacantaada markaad wax goynayso waa inay gacantaadu sidaa ahaataa hadday gacantaadu sidaa ahaato look waagaan badowga haban saa wax u goyn jiray badowga waagaan ahaa ama saasaan oran jiray waagaan badowga ahaa marka saasaa wax loo gooyaa. Ag. Look at that. Sidaas oo inoo jartaa. Abo, you have to copy me like that, yeah? Okay. Jamkan hadda aan isticmaalayo waa fresh jam anaa sameeyey waa strawberry anaa sameeyey. Okay, jamkii markaan sidaa u saaray creamkii waan soo qaadayaa. creamkii markaan soo qaaday strawberrygaan soo qaadanayaa haddana. strawberrygan waa kii daaradayda ka baxay. strawberrygan freshkaad arkaysan waa kii daaradayda ka baxay aan idin tusayey aan idin lahaa maamul goboleed kasta ha samaysto. waa kii aan idin lahaa laagadaad wax la iibin karaan samaynayaa marka hadda waxaan samaynaya waa wax la iibin karo wax la cuni kara ma aha keliya waa wax la iibin karaan samaynaya wax la iibin karo. wax la iibin karo soo qaadkan markaas saar. Okay soo qabo markaas xaggan saar sharaxaad u dhamaystir markaa
sida wax loo iibiyo sida wax loo sharaxo intaba waan idin tusayaa waana meeshan clean gareeyaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد ما قدر لهي إمسات كبحين لهي wax qurux badan ma sameynay aniga sheekh Suhay wakaas maqaayadaha waaweyn hoteelada waaweyn cafeteria meelaha cafeteria waa meesha waxa macmacaan oo dhan lagu cuno kafayga shaaha mintiga keega xalwada everything lagu cuno ayaa halkan lagu ayaa waxna lagu iibiyaa asaga iyo xabad koobashiina waa 3 pound 4 euro 3 euro 5 euro weeyaan all waxaan oo dhan markii la isku darana ingredient-ka aad meeshan hadda idin muuqda dhamaantood waa handmade ana sameeyay waxa aan banaanka soo gatay way ka yaryihiin very small way dabcan daqiiqda banaanka ka soo gatay strawberry uu ii baxay jamka anu ii baxay strawberry iyo jam waa isla similar ana labadaba sameeyay creamka asagana banaanka ka soo waxaan anyway saasaan sugu darbar alxamdulillah rabbil alamin inaad gadaba koobiyeysan inaad caruurta bartaan everybody inuu samaystaan doonaya shaaha lagu cabaa xaafada lagu joogaa xaafadu way shidnaanaysaa waa chief waa jaq markaa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bye bye